assalaamu calaykum mar kale waxaad ku soo dhawaataan muuqaal kale iyo barnaamijkeenii fikrad iyo faallo fikradda aan jeclahay maanta inaan idinla wadaago waa fikrad ka sheekeynaysa saaxiibtinimada magaceeda waxaa la yidhaahdaa communal versus exchange friendship theory waxay u kala qaadaysaa saaxiibtinimada laba nooc waqtigeeda wax badan uu jiraayo wax badan saaxiibtinimadu ay soconayso iyo nooc saaxiibtinimada waqtigeedu uu kooban yahay wax yarna ay jirayso haddii aynu ku bilowno in aan sharaxno nooca saaxiibtinimada waqtigeedu uu yar yahay magaceeda waxaa la yidhaahdaa exchange friendship waa saaxiibtinimo ku dhisan dan iyo wax isweydaarsi haddii maanta aniga asxaan aan kuu sameeyo adigana waxaan kaa rabaa beri inaa asxaan ii samaysid haddii maanta aan wax ku siiyo anigana waxaan kaa rabaa adi beri inaa wax siisid haddii maanta aan meel kuu raaco adigana waxaan kaa rabaa beri inaad meel ii raacdid dhabarka ii xooq adigana dhabarka aan kuu xoqo ayay saaxiibtinimadaas ku salaysan tahay marka waa saaxiibtinimo ku dhisan wax isweydaarsi waxbaa la kala iibsanayaa wax asxaana layskuma sameynayo waa saaxiibtinimo dan ay ku dhisan tahay saaxiibtinimada marka waa saaxiibtinimo waqtigeedu uu yar yahay magaceeda waxaa la yidhaahdaa exchange friendship saaxiibtinimada kale waxaa la yidhahdaa magaceeda communal friendship waa saaxiibtinimo labada qof isku soo dhowaanayaan xiriir fiican ay yeelanayaan runta isku sheegayaan daacadnimo isku yihiin labada qof ay is aaminayaan waa saaxiibtinimo markaas waxaa weye waqti badan jiri karta waqti badan soconaysa haddii xataa dhexdooda khilaaf uu yimaado iyagu isxalin karaan dadka intii ay qof kale u yeeran lahaayeen saaxiibtinimada marka xataa waxaa lagu tilmaamaa dadka caafimaadkooda taas inay u fiican tahay sababtoo haddii aan asxaan kuu sameeyo ma rajeynayo asxaanka inaad ii soo celisid sababtoo waxaan aaminsanahay asxaankaas wax ka weyn meesha in ay yaalaan oo ah saaxiibtinimadii meesha exchange friendship aan kaa rajeynayo inaad ii soo celisid asxaankii wixii aan maanta kuu sameeyey beri in aad ii samaysid taas waxaa lagu tilmaamaa caafimaadka dadka in ay u xun tahay sababtoo qofka haddii uusan sameynin asxaankii wuu shallaynayaa wuxuuna aaminayaa beri in uusan saaxiibkiis wax asxaana uusan u sameynin marka waxaa loo baahan yahay gadaal in aad inta usoo laabatid adiga aad isqiimaysid adiga saaxiib noocee ah ayaa tahay saaxiibadaana waa saaxiibo noocee ah ma exchange friendship ba mise waa communal friendship su-aashaas waxaan jeclahay inaad dib iskugu laabataan oo aad isweydiisaan si markaas waxaa weeye fikraddan iyo aragtidan wax badan aynu uga faa'iidno waxaan rajeynayaa muuqaalkan dadka kale inaad la wadaagtaan dadka kale aad gaarsiisaan khayr badan baa inii rajeynaya wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu